madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud horta taatalka halala qabsado Soomaalidu madaxweynuhu PhD uu qaatay hadda kadib madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo wasiirka gaashaandhigga dawladda aan walaalaha nahay ee Kenya Aadan Barre Ducaale Abaariyako anaga kelmadii gudoomiyaha noo yiri arinta waxaan kaliya raba halkan u soo istaagay inaan maaragtay sharaxaad yarna ka bixiyo dekedan iyo mashruucan iyo fishinkiisa iyo una mahad celiyo madaxda iyo marti sharafta iyo dadweynaha xafladan nagala soo qayb qaatay mudanayaal maanta saa u jeedaan dekeda waxa ku xiran markab 9,000 oo tana waxa dhamaaday wajigii hore ama phase 1 oo ka kooban laba jambi jambiyada A iyo jambiga B oo hadda uu ku xiran yahay markabku jambiga A waa 160 mitir jambiga B na waxa weeye 120 mitir 280 mitir labada jambi oo noo haray oo C iyo D midna waa 320 mitir midna waa 300 mitir waa labada jambi oo waaweyn dhabtigooduna ilaa iyo -13 buu gaaraya iyadoo aan wax directional lagu sameyn dad macnaheedu waxa weeye maraakiibta ilaa 40,000 oo tan baa ku xiran kara dekedan waxayna ka mid noqonaysaa sidii gudoomiyuhu sheegay deked ku soo biirtay dekadaha Soomaaliya mashruucan deked kaliya ma ahan mudanayaal marweyn waxaan halkaan rabnaa inaan ka hirgelino waa economic corridor ama corridor kale oo Soomaaliya ku soo biira oo ay ka faa'iideystaan guud ahaan dadka dega geeska Afrika gaar ahaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia mashruucani wuxuu ka kooban yahay in laga dekad casri laga hirgeliyo magaalada Garacad waxa ku jirta wadada isku xirta magaalada Garacad oo sii maraysa Gaalkacyo ilaa iyo borderka wadanka Soomaaliya uu la leeyahay dalka Ethiopia magaalada Turdibi halkaas oo aan ka rabno inaan ka hirgelino dekad ama dry port dekad qalalan si alaabta dekedan uga soo degta ay uga faa'iideystaan dadka walaalaheena oo dega dalka Ethiopia oo ugu horeeyaan dadka Soomaalida ee ku nool dawlad deegaanka Soomaalida marka mashruucani waa mashruuc hadda madaxda halkan fadhida saddex madaxweyne si gooni ah u qoseeya madaxweynaha dawladda federaalka oo aan ka codsanayno sidii gudoomiyuhu sheegay in koridorkan nala ka taageero madaxweynaha dawladda Puntland iyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagtar maxaa yeelay dadka saddexdaas ama gobolka guud ahaan Soomaaliya ama geeska Afrika ama Puntland ama dawlad deegaanka ku nool si gooni ah bay mashruucan u anfacaya marka intaas aan rabaa inaan ku soo gaabiyo aad iyo aad baan u mahadsantihiin